kulanti waxaana wanaagsan daawadayaal halkani waa NTN TV kusoo dhawaada wararkeena duhurnimo qodobada ugu muhiimsan waxaa kamid ah ciidamada dawladda oo sameeyay howlgallo lagu soo qabtay gawaari qaraxyo ah galmudug oo ka shirtay la dagaalanka al-shabaab kadib dagaalkii baxdo madaxweynaha Imaaraadka Carabta oo shaaca ka qaaday arrimaha uu kala hadlay madaxweyne Xasan Sheikh Kenya oo boqolaal askari soo dhoobtay xuduudda Soomaaliya nin shabaab ka tirsan oo xukun dil ah lagu riday oo soo hadlay asagoo baxsad ah wararkeena dibaddana waxa ugu muhiimsan dawladda Kuwait oo kala dirtay golaha baarlamaanka ee dalkaas iyo sababta keentay tirada dhimashada dhulgariirkii ka dhacay dalka Afghanistan oo sii kordhaysa waa 23 bisha 6 sanadka 2022 daawadayaal haddana ku diyaar garooba warkeeniyo faahfaahsan ciidamada xoogga dalka gaar ahaan ururka shanaad guutada 16 ee commandoska danab iyo ciidamada hay'adda sirdoonka iyo nabad sugidda Jubbaland ayaa soo bandhigay hub iyo qaraxyo ay ku soo qabteen howlgallo ay ka fuliyeen tuulooyin ka tirsan gobolka Jubbada Hoose howlgallada ayaa si gaar ah looga fuliyay deegaanada Beerxaani Qudus Dharkeyn Urur Yaaq Dabayl iyo Barjaale oo ka wada tirsan gobolka Jubbada Hoose saraakiisha ciidamada ee hogaaminaysa howlgalka ayaa sheegay in ay burburiyeen taliska qaraxyada ee al-shabaab ay ku lahaayeen Jubbada Hoose isla markaasna ay gacanta ku dhigeen hub qaraxyo iyo gaadiid sidoo kale saraakiisha ayaa sheegay in inta uu howlgalku socday ay dileen 2 xubnood oo ka tirsan al-shabaab isla markaana ay gacanta ku dhigeen 4 kale sawiradan ayaa lagu baahiyay bogga Facebook ee idaacadda ciidamada madaxweyne ku-xigeenka dawlad goboleedka Galmudug Cali Daahir Ciid ayaa maanta shir gudoomiyay shir looga hadlay amniga guud ee deegaanada Galmudug shirkaas oo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka Galgaduud iyo saraakiisha ciidamada qalabka sida ayaa tirada lagu saaray amniga guud ee Galmudug iyo la dagaalanka al-shabaab kulanka ayaa waxaa looga hadlay dhacdooyinkii amni ee ugu dambeeyay sida weerarkii al-shabaab ay ku qaadeen deegaanka baxdo ee gobolka Galgaduud madaxweyne ku-xigeenka Galmudug oo shirka ka hadlay ayaa saraakiisha ciidamada amniga faray xoojinta howlgallada ka dhanka ah al-shabaab daawadayaal halka aad nagala socotaan waa NTN TV Sheikh Said bin Zayed Al Nahyan madaxweynaha Imaaraadka Carabta ayaa xaqiijiyay in Imaaraadka Carabta ay si joogto ah oo dhan walba u garab taagan yihiin dawladda iyo shacabka Soomaaliyeed si ay u gaaraan himilooyinkooda horumarineed xasiloonida iyo dhismaha mustaqbal wanaagsan oo dadkoodu helaan arrintan ayaa timid markii uu maanta ku qaabilay qasriga Al-Shaati madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ah ee Soomaaliya Mudane Xasan Sheikh Maxamuud madaxweynaha Imaaraadka Carabta ayaa soo dhaweeyay booqashada hogaamiyaha Soomaaliya wuxuuna ugu hamliyay xilka madaxtinimo ee Soomaaliya isagoo u rajeeyay inuu ku guuleysto hogaaminta dalkiisa iyo kamira dhalinta himilooyinkiisa iyo inuu dalkiisa ku soo dabaalo xasilooni horumar iyo nabad labada madaxweyne ayaa lagu lafaguray hagaajinta xiriirka iyo iskaashiga labada dal fududeynta dhaqdhaqaaqa ganacsi isku socodka muwaadiniinta iyo bixinta dalku galka ayaa lagu yiri war qoraal oo ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya ayaa muujiyay sida uu ugu faraxsan yahay mowqifka taariikhiga ah ee Imaaraadku uu ku garab taagan yahay dalkiisa isagoo uga mahadceliyay dareenka diiran ee uu muujiyay shacabka Soomaaliyeed danka ayaa looga hadlay dardargelinta iskaashiga labada dal ee dhinacyada kala duwan gaar ahaan dhinacyada horumarinta waxaana labadan dhinac ka wada hadleen dadaalada lagu nabadaynayo Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud ayaa safarkiisii ugu horeeyay ku tagay dalka Imaaraadka tan iyo markii loo doortay madaxweynaha Soomaaliya 15 bishii hore ee May dawladda Kenya ayaa boqolaal ka tirsan ciidamadeeda soo dhoobtay xuduudda Soomaaliya kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerar ku qaadeen tuulo ka tirsan degmada Mandera sida laga soo xigtay booliska Kenya kooxaha weerarka geystay ayaa burburiyay xarun isgaarsiineed oo ku taala magaalada Rahumo saraakiisha ammaanka ayaa sheegay in ay maqleen jug xoogan waxayna markii dambe ogaadeen in al-shabaab ay bam ku qarxiyeen xarun isgaarsiineed oo ay leedahay shirkadda isgaarsiinta Kenya ee Safari kooxihii weerarka geystay ayaa baxsaday wax yar kadib markii ay falka fuliyeen iyagoo ciidamada ilaalada ka ahaa xaruntaas ay iska caabiyeen dawladda Kenya oo ka jawaabaysa weerarnimadii dhacay subaxnimadii Isniinta waxay ciidamadeeda ammaanka u dirtay in ay ugaarsadaan raggii falka ka dambeeyay kuwaas oo u baxsaday aagga xuduudda Soomaaliya
taliyaha booliska waqooyi bari George Sede ayaa sheegay in ay diyaariyeen ciidamo badan oo boolis ah si ay u dabagalaan kooxaha weerarka geystay oo u baxsaday dhanka xadka. daawadayaal weli waxaa daawanaysaan warkeenii duhurnimo. cabdiraxmaan shirwac oo Siciid Lahoor oo lagu sheegay inuu yahay hogaamiyaha shabakada ka tirsan Al-Shabaab oo qaraxyada iyo dilalka qorshaysan ka geysan jirtay Boosaaso ayaa ka soo hadlay warbaahinta asagoo beeninaya dambiyada loo haysto. ninkan oo isagoo maqan lagu riday xukun dil ah ayaa sheegay inuusan wax lug ah ku lahayn dambiyada lagu eedeeyay, isagoo sheegay in 3 jeer oo loo xiray inuu ka tirsan yahay shabakada Al-Shabaab uu sheegay in wax dambi ah lagu waayay. Puntland ayaa qorsheynaysay in ay faafiso sawirada ninkan isagoo madaxiisa ay dul dhigtay lacag abaalmarin ah oo ay siinaysay ciddii xogtiisa soo sheegta sida lagu sheegay barnaamijka Afmeer ee lagu soo gudbiyo xogta arrimaha Al-Shabaab. 4 nin oo 2 maalin ka hor Puntland ay xukun dil ah ku riday ayaa sheegay inuu Lahoor yahay hogaamiyahooda bixin jiray amarada lagu fuliyo dilalka qorshaysan oo ka dhaca magaalada Boosaaso. maxkamadda ciidamada Puntland ayaa amartay in si degdeg ah ninkan loo soo qabto si cadaalad loo horkeeno. daawadayaal haatan ku soo dhawaada wararkeena dibadda. dowladda Kuwait ayaa kala dirtay golaha baarlamaanka dalkaas waxaana dhaxal sugaha boqortooyada Kuwait ku baaqay in la qabto doorashooyinka guud oo waqtigoodii laga soo hormariyay si looga baxo qalalaasaha siyaasadeed ee cuuriyaamiyay dowladda dalkaas ka arrimisa. khudbadu ka jeediyay telefishinka dowladda ayuu Sheikh Mashal Al Ahmed oo 81 jir ay ku sheegay in qoyska talada haya ay ixtiraamaan dastuurka Kuwait ee awoodda badan siinaya baarlamaanka dalkaas ayna tahay in ay talada dib ugu celiyaan shacabka si ay u muujiyaan rabitaankooda. dhulgariir cabirkiisu dhan yahay 6.1 ayaa ku dilay 920 qof dalka Afghanistan Arbacadii shalay ahayd, sida ay sheegeen saraakiisha maamulka masiibooyinka, iyadoo in ka badan 600 oo qofna dhaawacmeen. waxaana la filayaa in khasaaraha uu sii kordho sida ay sheegeen xogaha laga helayo tuulooyinka fogfog ee buuraleyda ah. sawirro lagu baahiyay warbaahinta Afghanistan ayaa muujinaya burburka guryaha iyagoo meedadkuna ay daadsan yihiin wadooyinka. dalada samata bixinta ayaa diyaarado helikobtera gaarsiisay goobaha masiibadu ka dhacday si loo gaaro dadka dhaawaca si ay u helaan gargaar caafimaad iyo cunno, sida uu sheegay Salaaxudiin Ayuub oo ah sargaal ka tirsan wasaaradda arrimaha gudaha. mashadu waxay u badan tahay inay sii kororto maadaama tuulooyinka qaarkood ay ku yaalaan meelo fogfog oo buuraley ah, waxayna qaadan doontaa waqti in la soo ururiyo faahfaahinta, ayuu raaciyay Ayuub. daawadayaal warkeenii duurnimo aad kala socoteen NTN TV waa naga intaas. intaan warkan warkixii ku kulmi doono waxaanu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo. NTN TV